kadib 4 saacadood oo isku xigta markii maalintii shalayto roob xoogan uu ka daay degmada Dilayadu ka tirsan gobolka Awdal waxa uu roobkaasi sababay in ay gebi ahaanba ballayadii degmada Dilay ka xigay hareeraha ay noqdaan kuwa soo fataha kuwaas oo keenay daadad xoogan daadkaasna uu ahaa ku keenay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta wali ilaa imika waxa si rasmi ah loo og yahay tirada u dhaxaysa 5 ilaa 6 ruux oo iyagu halkaas naftooda ku waayay iyadoo ay goobtaas gaadheen gurmad degdeg ah oo ka baxay degmadani Boorame xarunta gobolka Awdal geesta kale saako oo khamiisa ayaa waxa asqaran loogu sameeyay dadkii ku geeriyooday daadadkii xoogan ay xalayto ka dhacay degmada Dilah qaar ka tirsan xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo maamulka gobolka ka degmada iyo gudoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka ay kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi mas'uuliyiintaas oo ka hadashay goobtii lagu aasayay dadkani ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa runaantii masiiba dhacday dhimashada ilaa imika meydkaanu haynaa waa 6 dhaawacu waa 9 qof dhowr iyo 10 qof geedaha laga soo guray sida wasiirku xasan sheegay waxa weeye walaalayaal waxay qadareemo baajin karayno laakiin waxa ka xumaan lahayd maanta iyadoo duufaan iyo abaar iyo gaajo iyo macluul loo dhimanayo ka xumaan lahayd كما النعمة إلهي سبحانه وتعالى إنما شيء سي لكن سي إلهي سبحانه وقدره دد كمد إننا علفن وحولنا هي علف كيشنا الله سي marka naftiina u sheega Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qof qadaro uu dhintaa sidoo lagu qadarina uu dhintaa Ilaahay sabriga iimaan naga siiyo sabriga dhamaan iimaan naga siiyo nimcada shalay kuwa ku dhaawacmana Ilaahay ha u gargaaro inta ku dhimatayna naxariis jannaha ka waraabiyo eelkii qaraabadiina samari iimaan ha ka siiyo Ilaahay samari iimaan ha ka siiyo qaranka Soomaaliland oo dhan gobolka Awdal degmada Dilaa iyo qoyskiiba Ilaahay ha u naxariisto inagana Ilaahay noo daba naxariisto isku soo wada duub oo waa markii ugu horeysay ee roobabka gugu khasaaray inta leeg ay ka geystaan degmada Dilaa hase yeeshee ilaa imika waxa socota gurmadka la gaarsiinayo dadkii uu waxyeelada u geystay daadka xoogan ay sababeen ballayada dusha sare ka xiga degmada Dilaa wa Jaamac Xuseen Jaamac Somaliland Space Channel Boorama